السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowowda qadaha ramadaanka qaybtii afraad caawa waxaan ku iftiiminaynaa sida nafteenna uga faa'iidaysato waxbixinta marka laga soo tago in waxbixinta laga helo ajar iyo xasanaad haddana nafsadda iyo ruuxda qofka ayay siisaa farxad jirkeenna wuxuu soo deeyaa dhicaanno farxadda keena kuwaas oo sidoo kalena hoos u dhiga hormoonnada stresska haddii aad u fiirsato qofka wax bixinaya badanaa wuu dhoolla caddeeyaa xitaa marka uu bixinayo haddii uusan dhoolla caddayn mahadnaqa ayaa siiya dareen cajiib ah ramadaanka waa bil barako laakiin ma ahan bil qof walba uu miiska saarto cunto oo uu miiska buuxiyo waxaa jira dad keligood nool dad caawiyana aan haysan hooyo leh carruur badan oo aanay jirin cid u maqan qoys suga adinka afurka iyagoo aan hubin waxa ay cunayaan ama ay afurka ay cuni doonaan waxaa jira dad nadiif ah qalbigooda qurxan dhaldhalaalaya oo ay ka muuqato nadaafad laakiin gaajada ay gudaha qofkaasi gubayso waxaa laga yaabaa in maanta uusan hubin ama berri uusan hubin waxa uu ku afuri doono mararka qaar gaajadu ma qayliso way aamustaa waxay ku qarsan tahay daaqadaha xiran ee guryaha dariskaaga ah adiguna waxaad diyaarinaysaa miis cunto ay ka buuxdo laakiin hal su'aal isweydii ma jiraa qof kuu dhow oo aan haysan afurka caawa ma ku fikirtay inaad qof afur siiso qofkii afuriya qof sooman wuxuu leeyahay ajir la mid ah ajirkiisa iyadoo aan ajarka kan soomanna waxba laga nusqaaminayn wuxuu ahaa xadiid rasuulka salawaatullahi caleyhi wasalam uu ka wariyey altirmidi bixintu waxay iftiimin kartaa laba qalbi kan qaata iyo kan bixiya marka aad qof afurinayso ma aha oo keliya inaad calool buuxinayso waxaad farxad gelinaysaa qof u baahan waxaad siinaysaa dareen wanaagsan waxaad dhisaysaa xiriir waxbixintu faa'iido ayay leedahay oo adiga ayay faa'iido kuu leedahay markaad bixiso qalbigaaga wuu degayaa walbahaarku wuu yaraanayaa waxaad dareemaysaa qiimo iyo macno nololeed maxaa ka faa'iido badan adigoo helay ajir qof sooman adigoo dareen ahaan farxad helay maskax ahaan xasilooni helay aakhirana wax u sii horumarsaday oo wax sadaqaystay ramadaanku waa bil naxariis ha sugin in wax lagu weydiisto adiga hormuud noqo garaac albaabka deriska ka warqab dadka aan waxba haysan